afar gabdhood oo walaalo ah oo hal mar caloosha hooyadood ka soo baxay ayaa sheegay in ay mar qura ay wada aqal geli doonaan. waa arrin cajiiba oo indhaha caalamka mar labaad haddana dib hadalhayntooda ay uga socon doonto. afartan gabdhood ee walaalaha ah ee kasoo jeeda gobolka Kerala ee koonfurta dalka Hindiya ayaa hooyadood dhashay hal maalin. noloshooda oo dhanna waxay ku soo qaateen qaab isku mid ah. waxay cunaan hal nooc oo raashin ah, waxay ku labistaan oo ay xirtaan hal nooc oo dhar ah. fasalka iskuulkuna waxa ay fadhiisanayeen hal kursi ilaa inta ay ka gaarayeen da'da 15 sano. iyagoo 5 carruur ah ayay mar qura ka soo wada baxeen caloosha hooyadood. qofka shanaad waa wiil walaalkooda. maalintii ay dhasheen waxay soo jiiteen indhaha caalamka. hadalhaynta ugu badan ee dhalashada carruurtaasi waxaa si weyn u baahiyey warbaahinta caalamka. afarta gabdhood ee walaalaha ah iyo walaalkood waxaa lagu kala magacaabaa Uttara, Uttaraja, Uttara, Uttama iyo walaalkood oo isaguna lagu magacaabo Uttarajan. waxay dhasheen 18 bishii November ee sanadkii 1995. waxay doonayaan inay hal mar wada aqal galaan 26 bisha Abriil ee sanadka 2021. Uttara ayaa sheegtay waxyaabaha ugu badan ee hadda gurigooda looga sheekaysto in ay yihiin arooskooda. welina aysan soo iibsan amaba aysan soo gadan dharkii ay ugu talagaleen in ay xirtaan maalinta weyn ee xafladooda arooska. dharkaasoo noqon doona hal midab oo isu eg. Uttara waa wariye, ninka ay doonaysana mustaqbalka in ay xaaskiisa noqoto isaguna waa wariye. afarta gabdhood ee walaalaha ah arooskooda wuxuu noqon doonaa mid dhaqankooda ku salaysan, maadaama dhaqankooda uu dhigayo in xubnaha qoyska ay kala qayb qaataan xulashada qofka nolosha la qaybsanaya. afarta gabdhood ee walaalaha ah hooyadood Rema Devi ayaa ka caawisay in ay doortaan ragga guursanaya iyagoo kasoo xulanaya website ay isticmaalaan dadka guurdoonka ah. aroosyada noocan oo kale ah ma aha waxa la isku qasbo, waxaa la isku raadiyaa oo la isku beegaa dadka aqoontooda ay isku heerka tahay iskuna xirfadda ah. arooska iyo aroosadana waxay ku leeyihiin in ay soo bandhigaan fikirkooda ku aadan arrinta mustaqbalka guurkooda. lamaanayaasha waxay xaaladooda meherka dhacday bishii Sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay 2019, balse 3 ka mid ah afarta nin uma aysan suurtagelin in aqalgalka arooska la sameeyo maadaama ay ka shaqaynayeen bariga dhexe. laakiin 5 ruux ee walaalaha ah waxay isku dayayaan sidii ay u xaqiijin lahaayeen in arooskooda uu mid noqdo. gabdhahan ayaa ah kuwo wax waliba isla maray tan iyo markii ay dhasheen. way isgarab taagnaayeen, waxayna ahaayeen gabdho tartibi jiray. taasina waxay keentay in mid waliba ay yeelato shakhsiyadeeda gaarka ah. mid ka mid ah gabdhahaasi oo lagu magacaabo Uttaraja ayaa sheegtay in hooyadood ay jeceshahay in ay hal maalin wada aqal galaan. annaguna waan go'aansanay inaan isa sugno, ayay tiraahday. in la qorsheeyo aroosyada Hindida waxaa ku baxa qarash badan. qoysas badanna waxay isku mar ka dhigtaan guurka dhalinyarada ilma adeerka ah si ay u yareeyaan lacagta ka baxaysa. laakiin haddii si kala gaargaar ah amaba gooni ah loo qorsheeyo arooska afarta gabdhood waxay khasaare maaliyadeed ku noqon lahayd hooyadood. marka laga soo tago afarta gabdhood iyo arooskooda, wiilka ay isku mar caloosha ka soo baxeen ee lagu magacaabo Uttarajan wuxuu sheegay in isaga uusan weli go'aan ka gaarin inuu guursado, balse gabdhaha walaalihiisa ay ku mashquulsan yihiin qorshahooda. nasiib wanaag markii ay dunida ku soo biireen 5 carruur ah, waalidiintooda waxaa ka badatay farxadda. inkastoo carruurtan ay si wanaagsan wax u barteen, balse walaaca ugu badan wuxuu ka taagnaa caafimaadkooda. Rema Devi oo ah 5 carruurta hooyadood oo dib u xusuusanaysay sida ay carruurteeda ku soo koreen ayaa sheegtay in markii ay dhasheen miisaankooda uu aad u hooseeyey, inta badanna ay xanuunsan jireen. Rema David iyo saygeeda Prema Kuma oo ah carruurta aabahood waxay xaqiijiyeen in ay dhibaato adag ka soo mareen in 5 carruur ah hal mar ay wada koriyaan. dhaqaale buuran ma aysan haysan, sidaa awgeed waxay xoogga saareen sidii ay ilmahooda waxbarasho wanaagsan ay u heli lahaayeen. meelo badan oo dalka Indiya ka mid ah aad loogama daneeyo in gabadha wax la baro. wiilasha keliya ayaa la aaminsan yahay in ay heer wanaagsan gaari karaan. Uttara ayaa sidoo kale sheegtay in waalidiintooda qof waliba
ay xuquuqdooda siin jireen oo aysan jirin mid ay si gaara u gacan bidixeeyeen weligoodna dhibaato dhexdooda ah aysan imaan oo midba midka kale ay caawin jirtay oo ay midba midka kalena dharkeeda ay xirato laakiin musiibo ayaa qoyska ku habsatay markii ay gabdhaha iyo walaalkood jireen da'da 9 sano oo keliya. aabbahood wuxuu lahaa dukaan qalabka waxbarashada lagu iibiyo balse markii ay culaysyo badan oo dhaqaale ka soo wajaheen dhinaca ganacsiga sanadkii 2004 ayuu isdilay kadib markii ay qoyskan waayeen aabbahood oo biilka u soo shaqayn jiray. warbaahinta ayaa sheekadooda faafisay, dowladda ayaa soo faragelisay. waxaa Rema David oo ah hooyadood shaqo oo laga siiyey bangi maxalli ah. Rema David waxa ay sheegtay markaa kadib in ay diiradda saartay korinta carruurteeda, shaqadeedana ay ku filnaatay qarashka raashinka iyo waxbarashada. nolosha adagna waxa ay dadka ka dhigtaa kuwo meel fiican iska soo saara ayay tiraahday. dhakhtar deriskooda ahaa ayaa markii uu arkay xaaladda qoyskan waxa uu siiyey guri ay hoy ka dhigtaan kaasoo ay aad uga mahadceliyeen. dhammaan 5 carruurta ahba si wanaagsan ayay wax u barteen waxayna ka qalin jibiyeen culumta ay kala doorteen. hooyadeen aad bay u faraxsan tahay, waxay mar waliba doonaysaa in aan noqono dad madax bannaan ayay tiraahday Utara. qoyskan waa Hinduu, arooskooduna wuxuu ka dhici doonaa macbad caan ah. keliya xubnaha qoyska ee aadka u dhow iyo saaxiibada ayaa lagu casuumi doonaa. wariyaasha iyo sawirqaadayaasha ayaa sidoo kale la filaya inay halkaas soo buux dhaafiyaan. ishana lagu wada hayo waa barako ayay tiraahday Utara. in ay 5 carruur ah mar qura wada dhashaan waa arrin dhif iyo naadir ku ah caalamka. sidaas darteedna waxaa dhaqdhaqaaqooda danaynaya warbaahinta maalintii ay dhasheen, maalintii ay iskuulka wada bilaabeen iyo maalintii ay dhammeeyeen waxbarashadaba waxaa wada tabiyey warbaahinta maxalliga ah. gabdhahan walaalaha ah waxay hadda ka fikirayaan sidii ay u caawin lahaayeen hooyadood. waxay sidoo kale sheegeen inaysan weligood kala tegi doonin xitaa markii aan kala aadno meelo kala duwan oo aan ku noolaanayno. mar waliba waxaan isula jiri doonaa si niyad ah waana iska fikiri doonaa ayay hadalkeeda ku soo gabagabaysay Utara oo ka mid ah 5taasi hablood.